السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دلها waa idin salaamay mudun daafadka joogteen kusoo dhawaada barteeda YouTube-ka nuuxiga qofka idin la hadlayna waa isagii nuuxiga ee kusoo dhawaada barteeda YouTube-ka mar labaad iyo mar saddexaad aad baan idin soo dhawaynayaa hadda nagu cusubta fadlan noo subscribe garay hadda nagu cusub hor noo joogteen just noo like garay adigoo mahadsan noo sii sheegay inay macquul tahay actually sida la socoteen oo sida idin sheegay video-ga hore dad baa jiro oo ma aragtay ilaa 20 bishan ay idin dhahay interview-gu mari doono marka good news idin haya by the way dad oo maaragtay interview-gi maray oo maaragtay rajo fiican leh ayaa maarkay codadkooda idin haya wiil ka mid ah wiilashii aan ka sugayay oo maray interview-gaas ayaa maaragtay la soo wadaagay codkiisa waana idin maqashin doona insha Allah biidin karim xagga waxbarashada markii codkiisa dhageystay aniga waxay ila cadaatay haddii outside of Somalia histid waxbarashadaada inay wanaagsan tahay shahaadadana problem saas u balaarin ka jirin ay ii cadaatay way dhici karaan waxyaalo kale inay jiraan laakiin wiilkan sida hadalkiisa ka dhadhansaday ama ka qaatay aan dareemay inaysan problem zaid ka jirin oo ka jira problemka dadka oo maaragtay secondary leavers-ka ah oo aan secondary bas dhameeyay oo shahaado jaamacad iyo wax haysanin asagu wuxuu haystay shahaado jaamacad oo ka soo dhigtay Sudan oo ka soo bartay ayuu haystay taasaan saaciday maaragtay inuu fududaato by the way asaga kaligiisa ma ahayn laba qof ay ku ahaayeen asigi wiil uu dhalay ay ku ahaayeen marka asigi wiilkiisaba approved lama dhihin laakiin haddii documentiga additional document la weydiiyey additional documentkaas la weydiiyey awgeeda ayaa loo dhihi waayay approved marka insha Allah waan u rajaynaynaa inuu ku guuleysto intuu u dhimanna insha Allah biidnillahi karim inuu Ilaahay u fududeeyo ayaan ka rajaynaynaa insha Allah biidnillahi karim haddana aan codka idin maqashiyo maaragtay wiilkaas codkiisa ayaan jeclaysan marka in la wadaago oo idin maqashiyo asxaabta dhammaan saaka xilli horaan tagay meeshaas saddexda iridood markaan ka galay number la ii jaray numberkii aan qaatay waa sugay adiga 5 daqiiqo ama 7 daqiiqo kadib dadka anaga ugu soo horeynay waa gudaha u galay darishada sagaaladan tagay meesha oo ahayd dokumentiyada in la isaga qaado dokumentiyadii dhammaantood waa laga qaaday naagta marka waxay weydiisay high certificate-ka high school certificate-ka keenay ugu dhahday kadib waxa ugu daray waxaan dhahay degree-na waan wataa aan dhahay markaas ay ugu dhahday wixii aan ku weydiiyo ii soo dhiibay dhahday anigu kuma weydiin degree waayaan dhahay kadib dokumentiyadii wixii oo dhan markay wada qaadatay lacagtii soo bixiyay dhahday lacagtii u tagay waa iska soo bixiyay axbaar yar banaanka aad ku sugaalay dhahay meeshii aan u fadhiyay waa la ii wacay oo soo noqday marka waxa uu imaaday darishadii toddobaad waa meeshii joogtay naagta Mareykanka cadaanta naagta oo si fiican ay soo dhaweysay waxay dhahday su'aalaha ugu horeeyay weydiisay wiilga ma guursatay waa guursaday hadda waan furay aan dhahay caruur ma leedahay meeqa hal okay kadib markay su'aashaasi weydiisay waxay dhahday marka xaas hore ma soo martay maartay ma guursatay kadib ma guursatay mayaan dhahay xaala cunugan ma naagta hore aad furtay divorce-ga oo warqadan ku qoran ma cunugan ayada ma dhashay kadib waxa ii weydiisay hadda ka hor ma ku nooleed waxa meel ka baxsan Soomaaliya aan ku noolaan dhahay waxay leedahay xaga ku nooleed Suudaan maxaa sababta u joogtay maxay ahayd waxa ka hor horta in muddo intay joogtay muddadii u tilmaamay kadib waxay leedahay maxaad ka qabanaysaa aad u joogtay hadafkaad meesha u joogtay maxay ahayd waxay u dhahday waxaan dhahay marka waxbarasho u joogay waxbarasho ma u joogtaa okay shahaadooyinkii waa kuwan aan dhahay shahaadooyinkii aan siiyay shahaadooyinkii marka hore iga diiday naagta madowed ayadii marka iga dalbatay waan siiyay naagtana cadaantaan siiyay shahaadooyinkii marka waa fiirsay markay fiirsay mid kamid ay qaaday tii gudahay la gashay xabaaray maqneed ana meeshan taagnaa oo soo noqotay marka waxay weydiisay xaaskaagi ma ka haysaa ID ama sawir maxaa la dhahay passport waan ka hayaan dhahay laakiin mobilka ku jira soft ahaan oo haya bis waxay dhahday passportkaasi soo print garay
waxaad soo raacisaa sawiro oo cunugaagii oo kale aad iskula jirtaan oo waa hore ah DHL-ka kusoo diray igu dhahday. Documentiskiina wada originalka ahaa, tii shahaadooyinkii originalka ahaa, tii dugsi sare ay igu soo celisay, labada shahaado jaamacaddu ay iga qaadatay originalka. waxay kaloo iga qaadatay kuwii oo iga reebatay kuwii furiinka iyo dhalashada dhammaantood originalkii iyo documentiskii dhammaantood oo la siiyey oo iga ceshatay. marka waxay dhahday kuwan anaa haysanayo, marka sawiradaas soo dir iyo baasaboorkaas ay igu dhahday, kadibna emailkaagii mar walba jeegaray. intaasaa maaragtay aniga iyo kule hadda embassiga ama safaaradii saaka intaasaa maaragtay dhex maray. kulley waxaan filayaa in meeshaasi aniga hadda xoogaa yar culays iga imaaday dhanka oo maaragtay furiinka iyo cunugaasi xoogaa yar maaragtay laigu adkeeyo, oo hadda in additional document loo baahday cadeen ah in cunugaasi sawiro aan waa hore la gelay laiga dalbado. taasaa keentay, laakiin wax barasho ah oo xaggeeda ah laigala hadlay ma jirin. marka tii dugsi sare ii soo celisay, kuwii jaamacadda qaaday that means wax barasho culays kama jirin. culays waxaa ka jira marka gabadhii aniga aan kala tegnay iyo cunugaan oo aniga aan wato oo wadan Mareykanka loo sii wado. marka xoogaa yar inaysan sahlanayn ay u muuqataa. marka security-ga ama xoogaa yar marka waxay u baahan yihiin in cadeen fiican loo helo. marka rajeynayaa qof walba oo waxbarasho ka baxsan Soomaali maaragtay kulley maasha Allah ma u maleynayo culays inuu ka imaanayo sida hadda aniga lima weydiin. keliya dugsi sare haddaad haysato dugsi sare lagu soo celinaa ma u baahna, laakiin wixii kale qaadanayaan oo markaas ayaga qualified ay markaas ay u rabeen. codka si fiican u soo dhageysteen. nasiib waaye waxaan sida hore lagu sheegay waa bakta nasiib sidiis dhanbo. dadkii oo maaragtay negative la siiyey ama deny la siiyey aad baan u apologize garaynayaa. aan wax xumahayna maaragtay nasiibkiina uu noqon waaye. insha Allah marka la soo abalay garaya marka inuu nasiibkiina noqdaa laga yaabaa. marka insha Allah bidin lay karimtaas jeclaysiin inaan socodsiiyo. education-kan waxbarashada Soomaali kaliya lama diidano. qofka siyaabo badan lagu diidaa jiro, qof waxbarashada lagu diidaa, qof maybe arrimaha hadalisa isdhaafay, qof wax baa lagu diidaa. marka insha Allah bidin lay karim waxaan idin rajeynaa dhamaantiin guulaan dhamaan meel badan daafada ka joogtiin. I hope waa codka si fiican u soo dhageysateen, wax walbana waad u fahanteen oo maleynaa insha Allah bidin lay karim. inta dhimanna Ilaahay ha noo dhameystiro oo si wanaagsan ha noogu dhameystiro insha Allah bidin lay karim. inta soo gabagabeynaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh.